ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار waxa halkan oo saalisa maanta halkan waxaan isugu nimid guddiga horumarinta reer Dares Cabdalle iyo odayaal kale xubno kale oo muhiimana oo helinayaan ay nala joogaan aqalkiina de hogaankii guudna uu nala joogay dhaqanka ahaa runtii waxaan isugu nimid halkan mahadnaq iyadoo ka yar warbixino barnaamijkii qiimaha badnaa ee afur walaalka ee aynu galay iyadoo rag carabka wada marin doono mahadnaqa haddaan xubnaha si guud u yar taabto ninka u baalaya Saciid Baasha Axmed وحبن فرفرعون وقبل كاشامة هودكنا خير الله سي halka inoo qaabilsan Ethiopia runtii ninda xaga hawlo badan nooga haya xubnaha maamulkana ku jira waxa ku xiga Faarax Qoorgaab weyd oo isaguna xubin guddida kamid ah waxa ku xiga gudoomiyihii guddida qolqol joogta Axmed Cabdullaahi Ibrahim Ciise waxa ku jira ku xiga Maxamed Baasha Cali oo xogeyntii guddida ah waxa ku xiga caaqilkii guud waxa ku xiga Xaaji Axmed ayaa isaguna inoogu xiga marka runtii hawsha saasay inoogu socon doontaa si guud ayaa rag uga wad bixin doona barnaamijka hadii Ilaahay ka dhigo afur walaalka sheegay waxa halkan la isugu yimi in reer Dares Cabdalle horta marka ugu horeysa looga mahad celiyo deeqdii ay bixiyeen ee ay dadkooda ugu deeqeen waxaanu leenahay idin leenahay meel ka soo joogtaan jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran wa taqabbalallahu min sadaqatikum wa jazallahu wa hafizakumullahu min kulli suu taasan idinku ducaynayna Allah idin barakeeyo wa waxaanu kaloo idin leenahay Allahumma ij'al lahum khalafan fima anfaqu waxa bixiseen wax soo gadaal mara oo khayr qaba Allah idin siiyo maxaa dhaday dad iyo dunyaba Allah idinku ilaaliyo balaayooyinka iyo cudurrada Allah idinka ilaaliyo taasi waa duco ayaan maartay intaan kaga tagayaa mahad celin dabadeed waxa kaloo idin yar dareensiinaya fadliga ay sadaqadu leedahay in maartay wax la sadaqadaysto oo wax la bixiyo wax weyn weeye Ilaahay agtiis aayado fara badan oo Quraana misal arinta ku soo arooray misalada ku soo arooray waxaan mathalu alladhi waxa kamida mathalu alladhina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat 7 sanabila في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء سورة البقرة آيات اسكو جرت آخر كده ربي وحو tilmaamaya dadka Ilaahay daraadi wuxuu baxsada ee sadaqa bixiya waxay ka dhigan yihiin waa tusaale cajiib ah xabada haruura oo dhulka la galiya xabada haruura dhulka lagu aas oo maxaa ka soo baxay
markii xabadii dhulka lagu aasay 7 saabuul baa ka soo baxay furuuc bay bixisay ama 7 saabuul 7 saabuul mid walba waxa ka soo baxay 100 xabbo oo haruura halka maxaa la yidhi wallahu yudaa'ifu liman yashaa ayadu waxayna tusinaysaa sadaqadaad bixiso in 700 oo jeer lagu labin laabayo ilaahay tilmaamaya waxaan $50 ama $60 ama $100 ama labadii intaba waa bixiseen aad bixisay 700 oo jeer baa ilaahay ku laban laabaya waxba laga marnimay say waliba ilaahay muxuu ku xigay wallahu yudaa'ifu liman yashaa ciduu doonaba ilaahay u siin laban laabaya uga sii kordhinaya marka waxa ku bushaaraysataan ilaahay dartii waxa u bixiseen inaa heleysaan maalin ay u baahantiin rasuulkana wuxuu عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله تضبا إلهي هركيس هرصدا maalinta cadceeda la soo dhaweeyay qiyaamaha 7 qof baa harka ilaahay harsada xadiiska qaar waxa tilmaamaysaa fi dhil al-arsh arshiga harkiis cadceedu aad u kulul oo halka inaga gubiso la soo dhaweeyay oo in yar mayl la soo joojiyay kiiloomitir iyo wax yar ay soo gaadhis ayaa maxaa dhaday halka la soo joojiyay dad baa ilaahay arshigiisa harsanaya maxaa ku jira warajulun maxaa kamid ah 7da way badan yihiin wada koobi karmeen warajulun tasaddaqa bi sadaqa qof sadaqa bixiyay fa akhfaha oo qariyay سهو سانم بوديبه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إلا مدكتيس وحي بحنسي أنا بدح دوغان وكناية عن شدة الإخفاء قرين تلقري قف كاسمارت الصدقة قرصون هو سقف كوديبه هو سبا وديبه سنده وحنا بكو سوتوري سنده هدي لها كان كونكم بكو سوتوري وآد ياد أيال كان مارته وحنا ندير رجينا إن شاء الله تعالى كوا عرشك الرحمن هرصدا الله الرحمن كعرشيسا كو هرصدا ee sadaqadooda fadligeeda ku harsada ilaahay idinka maartay idinka dhigo taana way idinku ducaynayna fadligaas ay leeday waxa kale jira waxaan idinku bushaareeniyo kale 154 qoys ayaa reer dareeso maxaadada ayaa caawiseen oo cunto siiseen waa arin aad u weyn weey waa arin boogaadinteeda leh waa arin maxaadada mahadnaqeeda leh وأهرين شكرنا قيدله ما كان محل وحن هوبا بقول لي أفريق كنتم قويس صدقة أب حسين ويجادي مية مقالبة النجو حقوقها ويتكتي جدي ده جزاهم الله خيرا ما لها عيب رجع هالكامارت فدي جدي ده ما سفي عن أو قيمة له وأجاسمين قيمة له وأجاسمين ما كان وحلي أنا يرى ما هي وحلي الإسلام بقى نبى وحد دجنان شري مال كينا أيو دجنان شري أو أيه islaantii baa ka burcadooday baa leeyo ka yar falagowdo xoolaha baadida ah ayuun bay qashaaba leeyahay habeenkii maarta kayn buu degan yahay dabta uu ka waanin jiray naga daa na booliga inaga daa maalinta dad uu reerkii raray banaan buu geeyay meel banaan u dajiyay dabadu wuxuu yiri markaasuu neef qalay arigiisii kamida marka banaanna waa jooga iftina waa jooga ayaduna habeenkii way xasayn jirtay meeshuna ay ahayd wuxuu naabal xalaasha eeg buu oo banaanka eeg oo iftiinka eeg reer daris waxaan leenahay ilaahay ka dhigo waxaan dhaday arintaasi si fiican oo qiimalay gudidaas u agaasid ilaahay ka dhigo reer dariso arka wanaaga iyo horumarka ku talaabsateen intaasaan ka wada arka iftiinka u baxdeen arka maxaa waa intaasoo laga sii kordhiyo wanaagu waxaan leenahay gudidana aad iyo aad mahad celin bay u baahan yihiin may mutaysan ragaas in la qashqasho may mutaysan dhiigoodii bay shubeen habeen iyo maalin bisa u wareegayeen ay tolka maartay u shaqeynayeen oo maartay qof walba telefoonka ka baxay oo qura waxna kuma qaadanayn ragaasina in loo mahad celiyo waa u mahad celinayay waa u soo ducaynaysan gudida waxa dhaday idinku shaqeynaysa bilaash in loo mahad celiyaabay maartay ilaahay ka dhigo ayay mutaysteen waan ku yara dheeraadaan u malanaya mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinayna waxaan idinku bushaarinay mar labaad iyo mar saddexaad wixii si fiican bay u baxeen horta marka warsa mahad ilaahay baa iskale mahad ilaahay baa iskale idina dhamaantiin Idris Cabdalle intii halkan sadaqadan ka soo qayb qaadatay qof kasta itaalu bixiyay qof kasta wuxuu bixiyay ilaahay aakhira miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay idinka qabaabiyo ayaan leen waan idinku mahadnaqaynaa naftiini baa ka qaadeen naftiinana waa qashateen maanta waxa sida uu aqal ka dhawaajiyay 154 qoys oo Idris Cabdalle ah oo dunida maanta Soomaaliland jooga mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga oo kilalka jooga oo meel walba jooga ayay gaadhay waa wax ilaahay loogu mahadiyaa hadii imka inta 150 ka loogu dhufto sida imka loo qiyaasahay imka Soomaaliland uu qiyaasto qoys kasta waxa lagu qiyaasaa raashinka la bixiyay 6 qof
haddii 6 qof 150 qoys lagu dhufto waa garanaysan qiimaha inta tirada inta leegtahay 1000 qof bay gaaraysaa marka 1000 qof iyo dheeraad ayaa quudiseen oo tolkiya oo reerkiya oo dadkii bahnaaya annaga ka gudi ahaan haddii aanu ka xoogaa warbixin ka siiyo sida annaga aanu qaybinay annagu waxaanu eegnay baahida qofka iyo baahida qoyska baahidiisa qoysku ka sii liitay qoysku ka jilicsanaa oo ugu horeysa agoomihii oo ugu horeysa dadkii taalka daraa oo ugu horeysa dadkii xanuunsanayay oo ay ugu xigaan hablihii baahana iyo inamadii baahanaaba dhammaan sidii loo baahnaayo qof kasta inan iyo inanba sidii loo baahnaa mar anagu kalmanay waxa la ilaahu aqoon tareen lagu cadaabin eexna naga tagin anagu sidii ilaahay ay xaq u ahaa sida u soo dhibateen iyo sida u soo bixiseen baan u gudanay waana u qaybinay qofkii ilaahay u calfay ee daris Cabdallana way gaadhay aad baan idinku mahadnaqayaa kulli hadalka rag badan baa haray oo waxa la hadalka maxaa haray lama yiraahdo ana haray lama maxaa haray baa la yiraahdaa waxa weey anigu hadalka intii muhiimadiisii waan idin soo koobaminayaa waxaan leeyahay waa mahadsantii waan idin ducaynaynaa qurbo joog iyo qolqol joogba intii ka qayb qaadatay mar labaad ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay miisaanka xasanaadkeena ku daro yidilada iyo wanaaga aan muujiseenna halkana waa ka muuqataa qurbahana waa ka muuqataa meel walba waa ka muuqataa waa halkaas oo ka sii wadaan waa halkaas oo kala harin annaguna ballan waxaan idin qaadanaa haddaan ugu didanahay inaanu wixii hagar la'aan iyo orod iyo itaal wixii awood nagtaba inaanu ka salka ka sii wado maanta waxaan isla helay dadkii bixinayay ee wax baxsanayay iyo dadkii weelka haynayay ee u gudbinayay cidii mutaysatay maanta dareys labadaas isla helay alxamdulillah maanta waxa weeyaan wixii aad soo baxsateen sida la idin sheegay waxay gaareen dad tiro badan bay gaareen dad haddii marka la qiyaaso average la sameeyo 1000 ka badan 900 iyo meelahaas aan ku qiyaasnay 900 iyo meelaha ayaan ku qiyaasnay waxa weeyaan walaalayaal waxa is-aaminay iyo tawfiiqda aynu tashanay iyo hoggaanka aynu samaysanay marka waxa weeyaan dareysow إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هيدين صاروا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه بإلهي وحيا بحثتان وحون إلهي ويدنك عولية ميزانك ويدين صارية وحن لا يهي أنا وحن هيدتك وحن قيبين أي وحن أي كسر دعين إلهي بان نقول سيد هيا نبحنا ما أنت هوجان جودها هي هوجان دبدا ونلام إلهي خير أصيان نكال إلهي فعل على محمد نكان سجارة أيانو ما علينا إلهي خير أصيو نكان فعل على محمد وحن لا هاي إلهي سبحانه وتعالى مساك حسناتك حقوق صاروا وحكستو أضاد بحصته وحويان وذهلسه وحكستو بحصته وذهلسه وحن لا هاي غير دريسو أي نسأمنه هالك كسي وضع يعني عدي مركو هراء أن كترنينا إما كصبح عدي هراء ودينا إلهي سبحانه وتعالى مساك حسناتك هاي صاره تهرب وهو ده mahadnaq un baan anaguna runtii aan kelmad mahadnaq aan ku darsado un baan runtii ma iga qaatay runtii waxaan leeyahay arin sadaqada iyo ihsaanka aynu runtii mar labaadkii imaka aynu ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyay rabadaanteedii maalmahan oo kale aynu sameynay iftaarka barnaamijka afuri walaalka oo markii labaad runtii waa sunno wanaagsan sanadii hore 9 qof meelahaas baynu runtii ayaynu gaarsiinay 9 qof baynu gaarsiinay meelaha haddana sida ay nadayaashii ugu horeeyay sheegeen 154 qoys 9 qoys aan dhaw sanadii hore haddana 154 qoys oo average-aan marka sida aqalkiisa sheegeen baadii 6 qoyskiiba 6 qof ka kooban yahay ku dhawaanaysa 1900 qof noqonaysa ayaynu muxuu ahaay inay gaadheen rajayna insha Allah taala rahantii waa barnaamij manfaciisu runtii qofku maalan maanta ahay qofka bixiyo aayayo kan maanta ay gaadhina maanta runtii ducaynayo qofka soo gaarsiiyay Turkiya isagana maanta ay wax u tahay ilaahay waxaan rajaynayaa inuu tubta toosan inagu sii sugo kuwii hore ugu sii socda إن الله سبحانه وتعالى نجيله سي سنة دي وراك أنا سمينا رمضان آخر كذا سكات الفطر من سنة كي وراك أنا سمينا إن سنة كنا إن شاء الله تعالى آخر رمضان قدرنا وسيو كلام كحجينه أنتي وراين كبدنا إنه إن شاء الله ورورنا قف كسته ورور الدرس عبد الله يعيد كستو كلو كستو هلا يبين سكات الفطر جا إنه يدنا محوها يسكت برنامج كذا إنه درنا جالسين تينا تلعسن بين رجينا إن شاء الله تعالى كلنا عصمك سوكوبيا نهانتي جديدة من قربي لقول قلنا عاد بنقول ما هذا
abaabulaha guud iyo isku dubarada guud faad xaaji cali maxamedna isagana si gaar ah runtii isagana ugu sii mahadnaqayaayo isku xirka guud iyo wasaciim ruuxi oo dhan karnaayo isaga runtii aad iyo aad xagga gubaabada isugu sii dubarida marka wixii kale qardoofay iyo xoogaa na waa u dulqaadaynayo dee waxa weeyaan way imanaysaa marka barnaamijka noocaas waa loo caqal celinaa insha Allah taala mahadnaqi soo fadhina waxa weeye barnaamijka la yiraahdo afuri walaalka oo maadaama aan ku jirnay bishii barakaysan Ramadaan in dadka ma garanaysa muslimiinta maartay inaga ah reerkeena gudiisa la deemarta la taakuleeyo danyarta waxay noqotay ma garanaysa aad iyo aad wax maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ma garanaysa raali gelin aan kaga helayno waxaan leeyahay oo kala aan gudbiya waxa jira deemartay gudiyo ka jira xagga qurbaha iyo xagga maartay qolqol joogtaba gudida hadaan ku horeeyo maartay qurbaha joogta aad iyo aad u maasan yihiin rag badan oo dadaalaya baa jira oo madaalayaala oo wax qabad leh oo aad iyo aad maartay u dadaalaya oo hogaaminaya maartay gudoomiyaha maartay gudoomiye Faad Xaaji Cali Maxamed oo ah qof shakhsi aan oran karo intii ma garanaysa aan hawshan isku nimi aan baan maartay aanu isku baranay barnaamijkan maartay madasha reer Idris Cabdille waa xubin qaayda amba leader buuxa weeye oo ma garanaysa waliba aan oran karo wuxuu yahay xubin أنا وحابن معنا لك افتماعية أنا كفتير كده وحابن إري معنا لك افتماعية قال دليل ترى درس عبد الله يو عاقل كوض فريا عفر شيء بينها اسمه يوجن واحد من هاي رهيب محمد يرهيب موسى يرهيب عبدي يفاد عفر تاسين نبا يا بكرة واحد لا وهي قفكم مركب وحقبض قفك بيرفورمانس سيجا مارتين بحقبض موسية وحصوص على مارتين إنوفيشن سمية اختراعات سمية قفك هسي وحول دقمية qaybna buu dhigmaya ma garanaysaa oo reer kamid ah marka waxa weeye barnaamijkaasi waxa weeye barnaamij aad iyo aad u muhiim ah afur walaalka dhanka kale hadaan soo gudbo maartay qoladan qolqojooga wax qabadkii gudidan ay qabteen diyaana baa la joogay intii Ramadaan intii ka horeysay si wacan bay barnaamijka tawsiiciisa iyo maartay iyo qaybintiisa oo galeen way gaarsiiyeen qaybtii hawdka si wacan baa maartay distributionkaasi u gaaray qaybtan kale maartay ayadana ku saabsan maartay gudaha magaalada iyo bariga xaggan bariga oo badanba dhammaan si wacan baa loo qaybiyay waxaan leeyahay maanta waxaanu qaadnay tubtii horumarka hadaan reer Idris Cabdille nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inoo xoojiyo waxaan ku soo dhaweynayaa xubinaan gudeed ka mid ah laakiin odayaasha reer Dareysa waa Axmed xagaan ninka la yiraahdo waa ninkii ku simaha intaan caaqilkan rasmiga inaan magacaabin waa cuqaashi reerka si hagi jirtay hore weeye marka imkana waxa leeyahay ku soo dhawow khayr Allah ku sii waa leeyahay ama qaati ka nahay gudida dibadda wixii soo bixisay oo soo idbateen gudida magaalada si lagu tagay u bixiyeen waxaan leeyahay waxa dhibba fars dhigay soo socodaan fars maxaa ka dhageynaysaa waxaan leeyahay sax ka sii badiyaan leeyahay saw wanaaga sameyseen ilaahay ka xajana siiyo ونفترض قاد واجب واحد ملك بس وكلها نروح لهلك إلى وين كباب بيحوا كباب كم ذوبه نروح إلى سي بدل كيسي واحد الرجال جودي ذا دود شوكته يعني قطان كوي لهاي وبدلون إن شاء الله يهاي ويدي بدليه ويحاب حسنتين مساك حسن تقول هاي كدريه الدريس أنت جودي دود لما قعبي magac buu yeesh iyo dulu yeesh dhaqdhaqaaq buu yeesh umada ku deeris waxaan leeyahay gudidaas dibadda iyo gudahaba wax fiican ba soo koris aad iyo aad baad salaamaya inaan si guud u yar taabtoon ka warbixiyo mashruucii ama qaybintii ama barnaamijka aan u bixinay afur walaalka mashruucaas runtii qiimaha uu leeyahay garan kartaan oo runtii dad qiimo badan oo runtii aad iyo aad u qiimo badan halkan ay kaba sheegeen tarka uu leeyahay guud ahaan waxaanu qaybinay ama aanu qoysaskii ay noqdeen 154 qoys laba face bay haayeen ama laba qaybood qaybtii hore waxa ahayd 85 qoys bay ahayd 85 ka qoys 85 ka qoys 16 qoys oo kamid ah waxaan u dirnay Belbeegsi 16 qoys oo kamid ah waxaan u dirnay Belbeegsi 69 ka kale laba qoys oo kamid ah Hargeysa ayaan dad runtii
magaca guudba ka baxsan laakiin dad jilicsan ahaa oo sadaqa inoo tahay leeyahay war dadka aynu wax tarno oo si gaar ah iyagana u siinay hayeen inta kale dhamaantood waxa loo diray miyiba loo diray laga bilaabo xuduudka halkan xuduudka waxa laga bilaabay qoondhaale bali darays dhoobada allaahumma salli bal saciid raqdi reebadeere muhulin ilaa ceelbaxa ilaa ay qaad intaasoo magaalo ayay soo martay runtii waqtigeediina way timid iyadoo dadka jiilaal iyo abaar baan ay hayso oo runtii xoolihiina runtii ka yar waxaysan yihiin oo waqti runtii wax aan iibsamayn ay tahay ay runtii iyagoon ogeyn iyadoo qof walba qoys walba magaciisa lagu sii qoro saddexan ayuu gaariga Ilaahay khayr siiyay gaariga agoonta aan saarnay ilma Xuseen caawiye Ilaahay barkeeye ayuu nin walba gurigiisa hordhigay runtii dadkaasi dad runtii qoys walba markii loo geeyay raashin aan la ogeyn aan cid soo dirtay aan ogeyn wad garan kartaa iyadoo jiilaal jiro iyadoo rabadaan madaxa lagu hayo maalin iyo laba ay ka harsanayd oo runtii aanay ogeyn cid soo dirtay oo qoys walba kambalkiisu loo dhigay farxadda iyo qiimaha waa dareemi kartaan reer daraysow dadkaasi sida runtii ay u ducaynayaan ee ay u mahadnaqayaan runtii marka 5 ka qoys face-ka hore ahaa 16 bil bixi bay hayeen inta kale miigaas ahayd iyo labada qoys halka face-ka dambe wuxuu ahaa 69 qoys oo magaalada ah ayuu ahaa 9 waxaanu dirnay burco gobolka Togdheer baan u dirnay Dr. Xamse Khayr Ilaahay si ayaan ku hagaajinay 5 kamid ah 3na waxaan ku hagaajinay Maxamuud Cashuur sidaasaan u dirnay hal qoysna inaan gaar ah loo diray iyaduna adigu 9 ka qoys gobolka Togdheer ayay runtii tageen inta kale 60 qoys oo kale magaalada ayaan u qaybinay dadkeenii baahnaa ay magaalada ah ayaan runtii u qaybinay Ilaahay khayraad siiyo barnaamijka maanta aynu bilownay ee guud ahaan ismaanka reerku wuxuu sameeyay runtii ididiilo weyn iyo wax weyn wax qabadka maanta aynu qabsanay ma aha kaliya inta ku ekaan meesay kii horeeyay noqon meesay arrimo badan oo kale ayaan runtii insha Allah halka inoo sii muuqan doona marka waxba ku sii dheeraan maayo anigu xumaan u baxay si guud inaan u yar taabto mashruuca qaabkan u qaybinay sidaan idin sheegay 104 ka qoys buha 85 miyiga oo 16 bil beegsi hayeen 69 kalena 9 burcay hayeen 60 kalena magaaladan u qaybinay runtii arintaasi sidaas ahayd waxaan idinku boorinayaa waa markii labaad ee horta in barnaamijka sameeyno sanadkii hore waa sanadkii rabadaantii labaad weeyay waxa runtii imikana inoo yaala oo runtii ay tahay inaan taabano oo qof walba khasab ay ku tahay inuu bixiyo mashruucii labaad ee ahaa barnaamijkii zakaatul fitrida sidii sanadkii hore baa inuu qaybinay nin walba wixii ka baxayay inaan midayno sidoo kale oo isla imikana inteena yar haarsanay ama miyiga waliba ha noqoto magaalada kolba halkii gudidu isla garato inaan maantana intii ku yar u qaybinaaba nala gudboon oo runtii kulliba waad bixinaysaa kulliba qof walba u bixinaya anigu waan bixinaya adigu waad bixinaysaa rag kale gudidu waad bixinaya marka kol hadii cid aad siinayso cid sadaqadana taad ehelkaaga siinaysaa baa ugu qiimo badan marka waxa leeyahay mashruucaasna aynu midayna sidii badigii hore gudaha dibadba aynu midayno dhowr 60 qoys 60 qoys meelaha si barigii hore ahayd imikana intii oo kale iyo in ka badan waxa doonto ha noqoto in ka saa noqotay talka sabana noqotay inaan midaynaaba ila haboon oo halka aynu ka sii wadno ilaaha samahadle ilaahay samahadle wax walba waxay midho ku dhalaan wada jirka duubnaanta ayay midho ku dhalaan tacaawunu cala albirri wattaqwa marka la isku kaashado xarga ilaahay la wada qabsado guulo badan baa la gaarayaa dadkeena baahan aynu sadaqada siinay ilaahay khayr ha uga dhigo dadkii sadaqada la soo baxayna ilaahay naarta kaga xoreeyo jahannaba maalinta la baahan yahay marka alxamdulillah wada aragtaan deeta boys ayay sida hore warka u haysaa kulay ay gaadhay insha Allah waqtiyada dambe wax ka sii weyn baynu isla kaashin doonaa oo bulshada dhexdeeda iyo ummadda dhexdeeda Soomaaliland oo dhan dhexdooda ka muuqda diilo wanaagsan iyo moraal iyo wadajir ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ma sha Allah dadkii soo bixiyna ilaahay tasaakumullah khayr ilaahay gacmiina wax khayr qaba ha ku soo rido oo ha ugu bedelo ma sha Allah afan la libillah intii ilaahay sheegay ay noo libillah Allah ay noo aqbalo